mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay maanta oo isniina magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalkani Kenya. Mudaharaadkan oo ay dhigayeen dhalinyarada jinsiga ee dalkani Kenya ayaa waxa ay ugu magac dareen Sabasaba, taas oo ahayd 1990kii mudaharaad ballaaran oo shacabka Kenyaanku ay kaga soo horjeedeen dowladii xilligaasi jirtay iyaga oo dalbanayay in doorashooyin dimuqraadi oo xor ah dalka laga qabto. dowladda Kenya ayaa waxa ay gebi ahaanba saaka xidhay wadooyinka waaweyn ee soo gala suuqa ganacsiga ee CBD ee magaalada Nairobi iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada ka baxa. Isu socodka guud ee magaalada ayaa ahaa mid aad u adag maanta. xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay ayaa waxaa soo baxay maalmihii la soo dhaafay digniin gaar ah oo ku socota in ay suurtagal tahay dadka mudaharaadaya in ay boobaan ama ay si toos ah ay ugu soo xadgudbaan ganacsiga iyo hantida Soomaalida ee xaafadaasi taala. dhanka kale xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ka degantahay magaalada Nairobi ayaa waxaa maanta oo isniin ah gebi ahaanba xidhnaa ganacsigii xaafadaas iyo sidoo kale isu socodkii dadweynaha. digniino soo baxay maalmihii la soo dhaafay iyo warar lagu wadaagay baraha bulshada ayaa waxa ay tilmaamayeen dadka mudaharaadaya si gaar ah laga yaabo inay u beegsadaan ganacsiga xaafadda Islii ee Soomaalida. isku duwaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii Umar Ahmed ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna u sheegay in dowladdu ay si buuxda u adkaysay ammaanka xaafadda Islii iyada oo ciidamo dheeraad ah la keenay si ay u sugaan ammaanka xaafadaas. askar xaafadda ku filan ayaa meel kasta laga dhigay. dowladda aad iyo aad baan uga mahadcelinaya hay'adaha dowladda ammaanka ku shaqada oo dhan ayaan u mahadcelinayaa. annagana guddi ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed waa aad ugu mahadsanyihiin siday isu xilqaameen ay ula shaqaynayaan hay'adaha dowladda iyo maxkamada ammaankeeda ku sugayaan. waa sidii laga rabay, waa sidii xoolaha iyo hantida sidii loo difaaci lahaa asaas weeye. wadajirkan iyo ismaqalkan boqolkiiba boqol shacabka aad ugu mahadsan yihiin. waxaan rajaynaynaa inta yar noo dhimay saacadaha noo dhimay inuu saa ilaahay noogu dhameeyo. dhowr meelood bay shaqaaqad ka soo wadeen oo dhinaca Kartuuji suuqa Komba xaggiisa dhinacaasna waa la caabiyey. meelo yaryar oo kale oo iyagana dhowr dhalinyaro yar ay ka soo galeen oo ilaa aan badnayn ayagana waan ka hortagnay isla markiiba. alxamdulilah xaaladdu fiican bay noogu socotaa. ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa in insaan noogu dhammaato. mar kastana oo waxyaalaha jiraan shacabka Soomaaliyeed inay insaan isku ogaadaan oo u fujignaadaan oo hantidooda u ilaashadaan. dowladdana ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka dowladdana saa loola shaqeeyo ayaanu mar kasta soo dhawaynaynaa. shacabkana kala shaqaynaynaa. guddiga ganacsi ahaan kulli way wada joogaan. dukaanley iyo guddiga ganacsiga xubnaha si uu kala gudbiyo kulli way wada joogaan. sidaas way shaqaynayaan. nin kasta maanta shaqadiisu wataa waan isqaabinay. nin kastana uu shaqadiisa sidiisa uga soo baxay. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhalinyaradii iyo akhyaartii suuqleyda ahayd dukaanleydii ninba xil qabsaday